Soomaaliya waxaa ka aasaasmay maamullo kala duwan oo horumar dhanka xasiloonida iyo nolosha haba ka sameeyay waxaana ay yimaadeen maamuladaasi kadib markii lagu soo jiray waqtiyo xaalada adag ay soo mareen deegaanada ay maamuladaasi ka samaysmeen dagaalo sukeeye abaaro cudurro safmaraha iyo dhammaan kaabayaashii nolosha oo la waayay kadib waxaa bulshooyinka qaar u istaagay waxgarad iyo aqoonyahan ka damqaday burburkii dhacay boogaha in la dhayo hadba midii xilliga daawo loo helo waa nidaam hagaagsan oo badbaado u eg gobolada Soomaaliyana in magaalada maalin loo helo kala dambeyn iyo xasilooni waa nidaam dhammaan agayga xasilooni ku soo dabaali kara maxay faa'iido leeyihiin maxay qasaare leeyihiin anigu waxaan qabaa xalka Soomaaliya inuu maanta ku jiro bottom up approach-ka waxa hoosta laga soo dhiso gunta laga soo dhiso inuu ku jiro 20 madaxweyne lama heshiisiin weyn waa la soo keeni karaa meesha oo waliba 20 ka madaxweyne ay yihiin true representative ayaga matala dadkii shacabka ayaga matala meesha marka dhinaca kale loo fiirsho 500 oo nin oo aan deegaanka ay rabeen inay matalaan baarlamaanka fiiray 525 no offense raalli ahaada laakiin intooda badan ma matalaan dadkii ay ka yimaadeen ama waxay uma sheegi karaan soo waxa u baahan tahay marka intii shir hadii la qabto in bagaati lagu qabto ama meel kale oo magac lagu qabto la yiraahdo hal isugu yimaado oo la keeno 200 oo jaakado Gucci wata oo ka wada yimid diaspora oo who's who aniga iyo abi karo kala la xushay oo tagnay shirarkii balse relationship lama leeyin deegaanka aan sheegayn arinta Soomaaliya dib loo moogin qurban 20 sano soo joogay siyaasad bar markii dawladdiisa dhacdaan ka tagay so sideen relationship ula yeelana dadkii aan rabay inaan matalo aan dhihi karaa dadkaan dhibaatada haysta waxay dhaantaa marka ayadoo laga fiirnaa dhinaca xumaanta 20 ka madaxweyne isjeclaysiye loo heesay ee loo sabciye la amaanay in qol inta la isugu keeno ayaga xalkii Soomaaliya dhab u haya la yiraahdo haye 20 kiilo madaxweyne ma noqonaysaan kee madaxweyne ku xigeen noqonaa keesa noqonaa wasiir waa fududaa halkaas maamulka Ximaniya Xeeba wuxuu ka mid yahay maamulada ka aasaasmay qaar ka mid ah gobolada Soomaaliya wuxuuna ku baahsan yahay deegaano badan oo ka tirsan gobolada Galgaduud iyo Mudug waxa xarun u ah magaalada Cadaado oo ay ku nool yihiin bulshada badan waxa la aasaasay maamulka Ximaniya Xeeba sanadii 2008 Ximaniya Xeeb macnaheedu waxay tahay horta xeeb waa wax iska caam ah oo la fahmi karo waa dhul bad saaran xeebtaas laha xemanna waa dhulkan waxa la yiraahdaa maaragtay biyaha ku yar yihiin marka ceelashaas waxa la yiraahdaa ceelashii ximnood marka saas uu magacu ku yimid waa wuxuu fasirayaa ama tusaale u yahay ama magac u yahay ama astaan u yahay dhulka Ximaniya Xeeba deegaanada laga aasaasay waxay ka mid ahaayeen deegaanada Soomaaliya ugu colaadaha badan iyadoo ay ragaajeen bulshooyinka ku dhaqan deegaanadaasi dagaalo sukeeye oo soo jiitamay muddo sanado ah waxaana wax ku noqday oo ku waxyeeloobay dad aad u tiro badan haddaba kadib aasaaskii maamulkan waxaa dhammaan la gaarsiiyay deegaanada maamulka hoos yimaado xaalada xasilooni iyo ammaan iyadoo aanan la adeegsan hab military balse bulshada ayaa waxay ahayd mid u baahan wax mideeya oo ku hagaajiya hilinka toosan iyagoo iminka hiigsanaya horumar iyo wax wada qabsi waxa ka jira law and order sida meeshan ugu jiro kale inkastoo Soomaaliya biiskeedu inkastoo iswada ognahay Soomaaliya nabadeedu waa baalkii waa dynamic waa isbedeshaa maalin walba laakiin waxa ka jira deegaankaas nabad lagu faanaa ka jira maamulkan waqtiga yar jira wuxuu wax ka qabtay arrimaha waxbarashada waxaana aasaasmay hay'ado waxbarasho oo ay taakuleynayaan jaaliyada dibadda ee maamulku uu dhiirigeliyay iskuulo hoose dhexe iyo sare ayaa ka furmay deegaanka boqolaal arday ayaa u dareera oo sita uniform midaba kala duwan
oo indhuhu ay ku macaansadaan waxaana ay ku kalahaan kasab tacliin iyo aqoon kororsi. gelinka dambe ee galabtii iyo waliba habeenkii saddexdaas waqtiba dugsigu waxa weeye mashquul ayuu wuxuu ku ahaa ama ku yahay shaqadii loo dhisay oo ah waxbarasho. waxa kale oo ka jira waxbarasho saaxiibka Abikar dardaarankiisa ma iloobin deegaankaas markaan tagayna waxbarasho kama jirin 20 sano la soo dhaafayna waxaad moodaa dagaalkii ugu horeeyay markuu dhacay ama dawladii ugu dambeysay markay dhacday wixii ka dambeeyay wax aqoon ma jirin. imagine ciyaalkeena subax walba waxaan ku erinaa warhead school aad dhigo waxbarasho cunug aan waxbarashadii iyo iskuulkii waxba haysan 20 sanona jira sidee u maamul kartaa dawladnimada sheegaysa ma yaqaan bini'aadanimada sheegaysa ma yaqaan in wax la dilo iyo in wax la badbaadiyo waxa u fudud in wax la dilo because kaas uu yaqaana dhibaatada ugu badan ee Soomaaliya haysatana ay ka mid tahay waxbarasho la'aanta ka mid ah sababtoo haddii dadku waxbarasho heli lahaayeen qofka rajaa gali lahayd qalinku markuu qofka qaato rajaa galaysa oo ah war Britain waxa aad maanta taagan tahay mid ka badan noqo waxa noo hagaagay in iskuulka ugu horeeyay aan ka furno haddana ugu yaraan 10,000 oo arday ayaa iskuul u labisata subax walba deegaanka Ximani Xaad ilaa 15 iskuul ka furan haddana waxaan soo dhagax dhigno jaamacadii ugu horeysay oo qaabilsan laba faculty ah dhinaca caafimaadka oo waliba caafimaadkuna uu yahay kalkaalisada iyo dhinaca educationka ama waxbarashada macallimiin si loo saaro. dhanka kale maamulka ayaa waxa uu fududeeyaa howlaha gargaarka dadka abaaraha ay qabsadeen waxaana uu suuro geliyay in hay'ado badan oo caalami ah ay tagaan deegaanada kuwa aan horay suuragal ugu ahayn sababo dhanka amniga ah. isboortiga iyo isdhexgalka bulshada iyadana dhankeeda ayay ka bilaabantay iyadoo tartamo ciyaareed lagu qabto deegaanka dhalinyaradana waxa ay muujiyaan xirfadooda isboorti. Ximani Xeeb ayaa sidoo kale waxay ka qayb qaadatay soo deynta iyo badbaadinta dad shisheeye ah oo afduubyo lagu geystay deegaano kamid ah bartamaha Soomaaliya waxaana kamid ahaa dadkii soo deyntooda ay gacanta ka geysatay lamaanayaashii Britishka ahaa ee Paul iyo Rachel kuwa oo kooxo hubaysan ay ka afduubeen badweynta India. waxaa soo ambibixiyay maamulka Ximani Xeeb oo muujiyay wanaagga Soomaalida nabadda jecel ee xumaha neceb iyadoo taana ay ka dhigan tahay in saldhigga siyaasadda maamulka ay tahay wada noolaansho iyo wax wada qabsi.